السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسلام يا دمان أرضيدا أقنصر لنا أكاديمي والدين تودا شرفت بدن بعد وحبرشة يعيد كستوات علينا وحبرته وحندوني إننا نديكو بشارينه إن أنا قاعدة إنه أرضي عصب وأنا قاعدة دونه ما دوي كإنجليزي يحسابته ما دوي كإنجليزي يحسابته أرضيدو دكسيدا سرة يوقف كستوات علينا وحبرته آد بوجو بهني هاي أنا قلنا مرة بو حنو تاجنا هنا نطوله باهدا annagoo idin diyaarinay koorsooyinteedu aad u sareyso si casri ah oo qaab fudud ahna loo dhigi doono maadooyinka cusub aan qaadan doono ee Ingiriisiga laba maado bilow ah oo Ingiriisi ah oo aan ugu talagalay ardaydu iyo qof kasta oo doonaya inuu gaarkii wax bartaba inuu ka faa'iideysto aqoontiisa Ingiriisigana uu kor ugu soo qaado waxaanu sidoo kale idin diyaarinay maado grammar ah English grammar ah وأنا قلت لك إن أنا كل شيء كرسوني ده أرضية دنك كهذا لك يقرأ لك اللغة الإنجليزية كورسدا سيدو كلا أرضية واحد كفاية دوانان ريو كساعدة إن يقرأ قادان كهذا لك يقرأ لك اللغة الإنجليزية وحنو سيدو كلا قادان دونا وأنا بلوني فصل عصب ومادة حسابتها وأنا سيجار وقلت لك إن يوقف فايدستان ardayda dugsiyada sare khaas ahaan ardayda form 4ka ee sanadkan ka baxaya dugsiyada sare maadadan xisaabta kooraskan aanu ku soo kordhinay ee ah trigonometric and calculus waxaan ugu talagalay in ardaydu ka bogtaan kana faa'iidaan aqoon dhaxalgal ah oo ka saacida inay imtixaanka guulo waaweyn ka gaaraan mustaqbalkana ay u aayaan oo ay intifacsadaan waxa sidoo kale aanu qaadan doonaa fasallo cusub oo maado xisaabta ah oo bilow ah oo aan ugu talagalay inay ardaydu ka faa'iideystaan uga bogtaan maadada xisaabta sidoo kalena qof kasta oo jecel inuu maadada xisaabta heerka uu ka taagan yahay uu kor u soo qaadana uu isaguna ka faa'iideysan karo waxa sidoo kale diyaara oo aanu qaadashada iyo isdiiwaangelinta bilaabi doonaa kooraskii hore ee isdiiwaangelintiisa aan hore u shaacinay numbers and algebra koorsooyinkan waqtigii isdiiwaangelinta markii la dhaafay aanu xidhnay iyadoo ay sabab u ahayd ardayda la qaadanay iyo fasalada la qaadanay oo koobnaa waxa jiray arday fara badan oo soo codsaday iyadoo ay sabab u ahayd in la dhaafay waqtigii diiwaangelinta chance iyo fursad waayay inay ku soo biiraan fasalada waxaan maanta jecelahay inaan mar labaad uga faa'iideysto uguna bashaareeyo ardaydaasi inaanu bilownay ama aanu dib u furnay qaadashada iyo isdiiwaangelinta koorsooyinkaas aan hore u soo sheegay haddaba hadduu jaanisku markii hore ku dhaafay ama waqtigu ku saamixi waayay amaba aanay ogeysiisyadu ku soo gaarin maanta ayaad jaaniska haysataa maanta ayaad waqtiga ka faa'iideysan kartaa waxaan kugula talinayaa oo aan kugu dhiirigelinayaa inaad isu diiwaangeliso koorsooyinkaas si aad uga dhaxasho aqoonta iyo cilmiga ku duugan haddii sidoo kale aad tahay waalid ardaygiisu baahi weyn u qabo koorsadan waxaad nala soo xiriiri kartaa waxaad u diiwaangelin kartaa ardaygaaga haddii sidoo kale garanayso amaba aad taqaano amaba aad la jeceshahay asxaabtaada inay koorsooyinkan isu diiwaangeliyaan waad la wadaagi kartaa waanaad u bandhigi kartaa waxaan mar kale ku celinayaa waqtiga diiwaangelintu inuu ku eeg yahay 1 bisha tobnaad ee sanadkan 2020 waqti koobanna uu ka harsan yahay inaad ku dhiirato waqtigan aad ka faa'iideysato si aad koorsooyinkaasi aad isugu diiwaangeliso oo aynu isugu aragno fusuusha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.